wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyay deegaanka Ceel Jaalle ee gobolka Shabeellada Hoose. Wafdiga gudoomiyaha oo ka koobnaa ilaa 6 xubnood ayaa waxaa ku weheliyay qaar ka mid ah ku-xigeenada maamulka gobolka Shabeellada Hoose. waxaana ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhaqaalaha ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Fataax Xaji Cabdulle iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada Cumar Carabey. wafdiga gudoomiyaha ayaa waxaa soo dhaweeyay gudoomiyaha magaalada markay xarunta gobolka Shabeellada Hoose ku-xigeenadiisa maamulka deegaanka Ceel Jaalle iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka Ceel Jaalle. wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax ayaa qaar ka mid ah wadooyinka deegaanka Ceel Jaalle iyo sidoo kale ilaa magaalada marka waxa uu safnaa qeybaha kala duwan ee bulshada oo wafdiga ku soo dhaweeyay deegaanada Ceel Jaalle iyo sidoo kale marka shacabka ayaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose uga mahadceliyay safarkii labaad oo muddo hal bil ah uu ku yimaado gudaha magaalada marka iyo sidoo kale deegaanka Ceel Jaalle. waxaana gudoomiyaha ay ugu baaqeen inuu qayb ka noqdo horumarka ka jira deegaanada hoos yimaada magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee maamulka magaalada marka ayaa telefishinka uga warbixiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen wafdiga gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose. magacaygu waa Xasan Aadan Maxamed diiwaan waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda degmada Marko. waxaan soo booqday oo maanta soo gaaray mufti ballaaran oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka si fiican aan soo dhaweynay. waxaa hadda garabkayga taagan oo aan ku wareejino arrintaas si fiican ugu faahfaahin doona gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka. maanta waxaan soo dhaweynay annagoo ku sugneen degmada Marko shaqooyin badan ka haynay. waxaa maanta soo gaaray gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenada arrimaha bulshada iyo maaliyadda si nabad ah wax ku soo gaareen degmada Marko. waana lagu soo dhaweeyay magaaladayna waa nabad. waxaan leenahay sheegay wada shaqeyn wacan gudoomiyaha soo dhaweyntiisa iyo shacabkina aad ay u martan yihiin. magaalada Marko waa la socoteen amnigeeda guuleystay shaqooyin adag oo aan hor ugu haynay. maanta inay sheegay waa laga dareemaa magaalada Soolradeedii iyo waxeedii way shidan yihiin. dadkina dib ay u soo laabteen. inta dhiman waxaan rajaynaynaa inay dib u soo laaban doonaan. magaaladayna waa nabad, waftigiina waa nabad. magaalada marka ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa laga dareemayay isbedel ballaaran taas oo madaxda ku dhiirigelisay inay soo gaaraan magaalada marka. Saalax Kalgacal, telefishinka Somali News, magaalada marka.